horta marka koowaad waxaan rabaa inaan wax yar ka iraahdo Soomaaliland iyadana dadkeedana heshiis la ahayn dawladda Soomaaliya oo ay ka tirsaneen heshiis la ahaan marka cid kale oo heshiis la gaari karto oo jirta sharcina uma leh awoodna uma lahan oo gobol inta tago inuu dawlad kale inta aad halkaas inuu heshiis la soo saxiixdo waxayna nooga dhigan tahay in khiyaano qaran tahay arintaasi uu ku kacay ninka hadda gobolada waqooyi ee Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi khiyaano ku kacay oo cad bay dalka Soomaaliya uga dhigan tahay ka wasaaradda ahaan runtii horey waxaan ula macaamilnay Khaatumo maamulka Khaatumo oo qayb kamid ah dhulalkaas hadda Soomaaliland ay sheegato oo dawladda Soomaaliya intay dagaal xoogan lagu qaaday oo maaragtay maamulka Soomaaliland ka taliyahay oo dhibaatooyin badan ka geysay dadkaas qaxiyay ilaa dad 800 ku dhow burburiyay magaalooyin waaweyn kadibna bifadlillah inay iska dulqaadeen dawladda Soomaaliyana ay soo dhaweysay gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha markii koowaad in dadkaas xasuuqana laga daayo dhibaatada lagu hayana laga daayo xaqna ay u yeeshaan inay dawladda Soomaaliya oo ay rabaan inay ka mid noqdaan aan laga hor istaagin finally waxaan garab istaagnay dadkaas la garab istaagay halkaana lagu soo dhaweeyay waxaana loo aqoonsaday inay maamul ku meel gaara meeshaas oo dawladda federaalka ah hoos yimaada hadda waxaa sidaas oo kale aan marti gelinaynay maalmihii la soo dhaafo dhan oo joogay magaalada Muqdisho horeyna u joogeen oo xildhibaanada iyo senatoriska iyo wasiirada ka soo jeeda gobolka Awdal ayaa dhaqdhaqaaq iyo shirar badan waday iyadana waan dhiirigelinay arintaas waxaan rajaynaynaa gobolkaasi inuu isaguna maamulkiisa u gaarka u helo oo ka madax bannaan kooxaas infisaaliyiinta marka u dambeysana waxay ku soo koomayaan dhowr magaalo ayay ku soo koomi doonaan